السلام عليكم كن سيدات بقول سيدتني أفرتي أو مدة هذا اللي جوجا كدوات هالقرن يبر وحكى دعي برلين شركة الرير يوروب كوكا لقيب صدين أفريقيا سببها شركة وجدة ذي كانت إنه شركة صدعوا وقصة كلا أو بهانين كلي جد لجا هضلو نصيب حما ده الكاسي لقيب صدق أيان قيب كأهين أو صوماليا وحي قيب أهان وجارتي تلياني أو جميستي صوماليا ولو مركي دنبئ إنجليز إسجنا قيب وقوي كمد جميستي يا فرنسيس أو قيب أهان وقوي فوق قاطي لكن قيب تسوقوي كما سيمid ahaanin Soomaaliya waxay noqotay dawlad ka madax bannaan waliba daris la ah Soomaaliya waxay sanadkii 1977 xornimadeeda ka heshay Faransiis iyadoo garab ka helaysa goboladii waqooyi iyo koonfureed oo mid ah markaas ahna Soomaaliya oo awood leh waxa halkaas ka dhalatay dawladda aan maanta wada garanayno ee Djibouti muhiimadeeda ma ahan inaan ku dheeraado ama xitaa aan ka hadlo gumeystihii dalka iyo waliba taariikhdiisa balse waxaan rabaa inaan xoog saaro waxyaabihii laga dhaxlay gumeystaha siiba wadamada Afrikaanka ah marka laga soo tago Mandarin afka Shiineeska ku hadlaan iyo af Hindiga oo dadka ugu badan dunida maanta yihiin waxa af ahaan dunida koow uga jira afka Ingiriiska waxaana soo labeeyay Spanish saddexaad oo uu ku jira caalami ahaan afka Carabiga waxa la baxay Faransiis balse su'aasha waxay tahay maxaa Ingiriiska ka dhigay afka koowaad ee maanta dunida isku fahanto taasi waa qiso dheer oo nooga baahan inaan qalin u qaadano ee ha isku wareerin haddaad aragto nin aan weligiis tegin Spain oo ku hadlaya Spanish ama nin aan weligiis galbeedka Afrika dhaafin oo ku hadlaya afka Faransiiska sababtoo ah afkii uu gumeystaha u keenay marna iskama aysan dul qaadin ama bedelin sidaas ayuuna kaga hormaray afkooda hooyo qiyaas imisadal ayuu maanta Ingiriiska ama Faransiiska ama Isbaanishka afka koowaad u yahay iskaga soo tag dhammaan arrimahaas bal noo soo celi Soomaaliya waxay xorriyadeeda ka qaadatay Talyaaniga oo gumeystay koonfurta iyo Ingiriiska oo waqooyiga gumeystay inkastoo goboladaas maalmo uun kala dambeeyeen haddana laga soo bilaabo 1960 ilaa 1972 waxa afka rasmiga ah ee dawladda ahaa af Talyaani iyo af Carabi taasoo ka dhigan in dadka Soomaaliya xilliga ku noolaa ay afka Talyaaniga si caadi ah ugu hadli kareen tusaale bal eeg sida madaxweyne Siyaad Barre uu ugu hadlayay afka Talyaaniga non somale o ente private ma è stato anche introdotto la lingua somala come lo sa bene e resta scritta in carattere latino o romano come si vuol dire non è, mi scusi Presidente, una porta chiusa all'Italia? Non vedo perché io ho visto il ministro Gaiatti e gli ho chiarito, ho detto sento un po', la decisione l'abbiamo preso come sempre per questioni di principio e di carattere generale, quando si fanno delle decisioni del kadib saldhigii iyo qoraalkii farta Soomaaliga ololihii horumarinta afka hooyo iyo waliba reer miyiga waxa la qoray markii ugu horeysay fartii Soomaaliga iyadoo ka kooban 5 shaqal iyo 22 shibani waxa saldhig u ah afka Talyaaniga iyo waliba afka Carabiga inkastoo Laatiin ahaan loo qoray waxa lagu micneeyay in xilligaas makiinadii wax lagu qori jiray ay Laatiin ahaayeen walow uu muran badan ka dhashay waana sababta ay maanta noogu fududahay qorista iyo akhrinta afka Talyaaniga iyo afka Carabiga gumeystii waan ka xurownay farta Soomaaligana waa la qoray hase ahaatee maxaa ka haray afkii Talyaaniga wali miyaan ku hadalnaa afka Talyaaniga mise waxa jiro ereyo Talyaani ah oo aan Soomaali ahaan u isticmaalno waan ogahay inaan af leenahay laakiin dhulmarkaygii iyo dadla dhaqankaygii kadib waxaan xaqiiqsaday in ereyo badan ama waxyaabo badan oo aan maanta koonfurta ka isticmaalno inay asal ahaan Talyaani ama af kale yihiin wax badan baa kugu soo dhacay sax subito maskaxdaada waxbay xusuusanaysaa iska dhoolla caday haddii aadan reer koonfur ahayn ugu yaraan wad maqashay ereyadan ama magacyadan soo socda bal sub waxaan weydiinaynaa Alessia oo qof Talyaani ah waxyaabahan soo socda waxa ay u taqaano ii sheeg Alessia qofka tuuga ah oo wax isdaba mariska badan maxaad u taqaanaan truffatore waa kaas ah walla annaga truffatoriyaal nagu ma yara ee wadada dhinaceeda maxaad dhahdaan taasna bal ii sheeg marciapiede marciapiediga waaba ku ganacsanaa annaga war marciapiediga dhankeena lama maro ee ii sheeg alaabta wax lagu cuno ama wax lagu cabo maxaad u taqaanaan bicchiere forchetta okay bal markan waxaad wax iiga sheegtaa baabuur wadista cambio marcia prima seconda terza dietro Soomaaliya ogaada in yaa taro ma ahan ee waa dietro sida ay gabadha leedahay bal ii sheeg markan guryaha waxyaabo ku saabsan comodino armadio soffitto serratura cancello cajiib waay war ileen Talyaani inuu afka koowaad noo noqdaan ku siganay waan gartay Alessia ee bal kubadda cagta wax iiga sheeg testa punizione portiere tifoso andato fuori
ritorna a casa. Okay, bal markaan anaa wax ka sheegaya talyaaniga ee iga sax. Weekiyo, dai, ookiyaalo, scarpe, furbo. Marka dumarka la dhaleeceynayana waxaan dhahnaa donna di danno. Kuwaas waaba talyaani anaa oge iyo xaqiiji bal. Vecchio, dai, occhiali, scarpe, donna e danno. Alicia, meelaha dadka fariistaan annaga derjiin ayaan dhahnaa ee adinka maxaad dhahdaan? Giardino. reer Muqdisho afarta derjiino ma ahan ee waa afarta jardiino ogaada. waxyaabo badan waad iigu celinaysaa si aan u fahmo, laakiin ii sheeg dhaqaatiirta maxaad dhahdaan iiguna dar per favore. kuwa filimada jilana maxaad dhahdaan? Dottore, dottoressa, attore, attrice. kuwan markasta dottoressa qoraayo ilan adinkaa nooga tegay. iigu celi hal mar. maxaa dhahday? Dottoressa. dottoressa bes waaye. maanta wixii ka dambeeya dottoressa waan fahmay meeshay nooga timid. idinkana fahma. dottoressa waa erey talyaani ah oo aan ka reebanay gumaystihii talyaaniga. qofka markuu qabow galo oo uu naqaska ama neefta dhibto maxaad dhahdaan ii sheeg bal? Colpo d'aria. colbaario ilan ereygaasina talyaani ayuu ahaa. ii sheeg guryaha shacabka maxaa u taqaanaan? Case popolari. warkaasa babalaare waxaa la yidhahdaa xaafadda noocaana oo Muqdisho ku taala ee sidaas u ogow. haddii aad tagta maalin uun Muqdisho waa lagu geyn doonaa xaafadda Case Popolare. ugu dambayn fadlan iiga sheeg wax uun askarta iyo tuugada. Ladro, ispettore, capo. waxaa jira waxyaabo badan oo aysan ii suuragelin inaan muuqaalkan ku soo qaato, balse aad adiga haddeer xusuusan tahay. haddii aad reer koonfur tahay dhammaan ereyadaas ugu yaraan mar waad isticmaashay. haddii aad reer waqooyi tahayna waxaan rajaynayaa inaadan ku wareerin reer koonfurka af soomaaligooda, sababtoo ah qayb ka mid ah waa talyaani iska soomaaliyoobay. ugu dambayn waa ilaahay mahadi inuu jiro af aan leenahay la qori karo lana aqrin karo. ummado waxaa jiro maanta aan afkooda qori karin oo keliya ku hadla, ama xitaa uu afkoodii dabar go'ay sababtoo ah afkii gumaystaha uu uga tegay ayaa maanta afkooda koowaad u ah. way mahadsan yihiin dadkii lahaa fikradda qoraalka farta soomaaliga iyo hirgelinteedaba. annagana iyaanan naqan kuwa dhumiya ama sabab u noqda dabargo'eeda. adigana waad ku mahadsantahay inaad intan ila soo gaartay. intaan muuqaal kale dib uga kulmi doonana waxaan kuu rajaynayaa waqti aad u qurux badan. Alessia, grazie anche a te per il tuo aiuto e per aver fatto parte di questo video. Grazie mille ancora e arrivederci.